عليكم ورحمة الله وبركاته Soomaaliya seeliya ma la nabdoon yahay waa anigii habeenadan oo dhan iska maqnaay oo iska mashquulay wallaahi adduunyadu ilaahay hana asturo khayr baa iska jira Soomaaliya dibadda Soomaaliya waa iska daba laalaadaa gabdhihii waa iska daba laalaadaan raggii dowladnimo iskaga daba laalaadaan tala ilaahay ka filan hala iska ducaysto hala yiraahdo ilaahu subxaanahu wa tacaala khayr iyo cafis iyo barwaaqo adduunyada waqti yar baa la joogayaa wax laga qaadahayana ma lehe maad tartiibsatiin waa aragteen adduunkii wadamo muxuu ahayd konton isteyda yaa ayaa isku tegay oo isku luuqad ku hadlaynin annaka isdhallay oo ehela oo walaala oo gacala oo aan meel kale jirin ayaan 24 saac isku dheganahay oo intaas waxaa laga shaqaynayaa in la isku dhiirigeliyo colaad iyo problem iyo waxyaalo aan loo baahnayn yaa marka ani waxaan dhihi lahaa dadka meediyaha ku jiro wanaagga ka shaqeeya waxa masaalaxda ka shaqeeya wanaagga ku fakara nabadda ku fakara wadanka horumarkiisa ku fakara wadankeena waa lagu soo duulay waa wadan qaniya waa wadan dihin ma fahanteen waa wadan aan curan marka waxa waaye wadankeena waa lagu soo duulay saan uga shaqayn lahayn iyo wanaagga iyo nabadda iyo xiriirka iyo isku imaanshaha dad wada dhashay baana oo isku soo laalaabta sida suuradda ma aragteen qul yaa ayyuhal kaafiruun iskugu soo laalaabana meel la kala tagaayana ma leh waxaan arkaya gabar ina adeertay oo aad uga hadasha maxaa la dhahaa meediyaha ingiriiskay degantaa gabadhaas waxay tiri habeen hore xala maahana habeen hore mise habeen saddexaad ay ahayd ogaadeen ma dego magaalada la yiraahdo Kismaayo abaayo horta dadka magaalada degan ma aha dadka lagu tiriyo muxuu ahaayay deganaanshaha waa miyiga dadka caanaha iyo qoryaha keena waa deegaan ahaan dadkaas la yiraahdaa meesha waa degan yihiin bal inta magaalo ay degan yihiin baan caawa ku tirinayaa ogaadeen waana dad Soomaaliyeed dhulka Soomaaliyeedna dadka waa ka badan yahay marka nidaamka iyo nabadgelyada iyo muxubada iyo isku soo dhaweynta laga shaqeeyo yaan laga shaqeynin isku dir iyo maxay meesha ma degtid iyo meel iyo xagga ma degtid iyo xagga ma timaadid waxaas yaan laga shaqeynin nabadda laga shaqeeyo horta afmadow ma maqash waa degaan bal dhigayso 8 magaalay degaan qooqaani dhoble bu'aali badhaadhe buulo xaaji buulo gaduud sanguuni horta ogaadeen 8daas meelood bay degaan kuwa marka xagga ka yimid jigjiga iyo aniga haddaan tago hobyo baadiyaheeda isku luuqad ma nihin central Soomaaliya ka yimid ma fahanti ayagana luuqaday ku hadlaan kuwana luuqaday ku hadlaan marka dadku lahjadu waa qofku meeshuu degan yahay ama meeshuu ku dhashay 8 magaalo dad degan oo miyiga waliba muxuu ahayd afmadow iyo meesha la yiraahdo iyo badhaadhe waa laba magaalo aad u waaweyn waa laba degmo aad u waaweyn ma tagta halka aniga qararafan ku ahaan jiray dhulkaas oo dhan waa maray markay noqoto sacadna aad bay u soo dhaweeyaan oo waxa weeye waxay dhahan dhalasha naga dhaxaysa hadda dadkuna haday dhalasha ka dhaxayso waa iska fiicnaan lahaydo hadda waqti casriyaha la gaaray oo wax dhibaato ma laho waa la maajeynayaa DNA-ga la iska qaadahaya wixii isla dhashay ma kala lumayaan ilaahu kun sanana ay kala joogaan marka abaayo walaal macaan waxyaalo badan oo laga shaqeyn karaa xamarka waan baa ku yaala xalane ma fahanti kawaanka la yiraahdo dadka lagu qasho kaas ka hadla adiga muxuu daahir cali soo iyo balwaan iyo fahanti dowladnimada iyo muxuu ahaayay iyo darajadana ilaahay baa bixiya qofka ilaahay calaf ugu daraa qaadanaya waxaa samaysaa horta qabiilka ogaadeen liya 8 magaalay degaan oo caana ka keenaan oo degan yihiin oo wax kasta wadanna hadaa maqashid ma aha dadka magaalada guryaha ka dhistay kow midda kale markaa leedihiin cashuur baa la cunaa oo magaalada Muqdisho cashuur baa la cunaa wadankan hadda aan degantahay ama adiga aan degantahay ama aniga aan deganahay ama daahir degan yahay anoo idinka critique in ku ahayn in ka soo horjeedo waxba in sheegaya qofku markuuna shaqaynin ayr buu cunaa waxaad ogtiin guryo dawlad la degan yahay yaa laga qaadaa lacagtaas iskaadka soo dadka wadanka dhashay ma hadda wadankan
sweden waxaa leedahay waa 9 milyan iyo bar 1 milyan iyo bar waxa weeye waa qaxooti boqolkiiba waxaan dhihi karaa 20 baa midhaa shaqaysa qaxootiga inta kale cayr bay qaataan hay yaa laga qaadaa iskaadkay cunaan marka iskaadka dowladda wax dadkaas shacibkaas reer sweden soo lama cuno marka sina waa dadkii waxaad ka dhigaysiin dad oo heer saraayo oo dad soo dhoweeyey oo muxuu ahayd dhaqaalahoodii dhinac laga cuno waa dad fiican hadda dad oo dad soo dhoweeyeyo hantidoodii dadkii walaalaha muxuu ahayd haddii canshuur ahaan inta loo qaato la wada cunay waa wax fiican xaggeese la kala aadahayaa meel la kala aadahaya ma jirto kood holland waa sidoo kale dadka waxa weeye guryahan degannahay lacagtaan qaadano waa lacagtan waxayd iskaadka laga qaado oo canshuurta baa dadka dhan cunaan haye london waa meeqa milyan meeqa qaxootiyay haysaa ma dadkaa shaqaystay dadkan dhulka waa kula leeyihiin dharood iyo dir iyo hawiye isaaqi dadkan meelay u kala socdaan mala waa dad wada dhashay waa dad ehela waa dad isguursada dibadaha laysku guursadaa awal baa lays dhalay oo tan iyo muxuu ahayd maalinkii ilaahay subxaana watacaala soomaaliya ku abuuray dadka intaasaa lays dhalahayay meel loo kala socdana male meel loo kala aadayana ma jirto cayda iyo dhiilada colaadeed ha la joojiyo dadkaa laysku soo dhoweeyo waxyaalaha qaldan iyo waxyaalaha qaladkaana ha layska saxo aniga saasaan dhihi lahaa daahir walaalkay maasha allah tabaarak nin codkara oo tala weeye laakiin muxuu ahayd ha la joojiyo balaayada la buufinahayo kow farmaajo shala waa la doorta maanteen qoladan la dhaho mudulood 184 coday heleen ayagaana siiyey ilaahay baana u kasay maantana hadduu calaf ku leeyahay wuu helahaya maxaa dhiba wanaaggaa laga shaqeeyo sidii magaalada loo qurxin lahaa sidii dadka layskugu soo dhoweyn lahaa sidii dadka muxuu ahayd walaaltinimo iyo gacalnimo muxuu ahayd dadka layskugu soo dumi lahaa maahan in muxuu ahayd maanta oo dhan laga dadka la barabagaano hebel meeshaa ma degan waddanka soomaaliya halkii qof hal degmo degi karaa halkii qof oo soomaaliya waddankii oo bannaan baa waxay leedahay reer hebel halkaa ma degaan reer hebel halkaa ma degaan maanta caasimaduna waa meel ganacsiga dadkii baa ku badan waa laga ganacsanahayaa guryaha laga dhisanahayaa qofka soomaaliga waa inuu boosaaso degi karo garoowe degi karo gaalkacyo degi karo xamar degi karo kismaayo degi karo yaa ii diidaya aniga hadda haddaan kismaayo tago qof ii diidaayo ma laha joojiya dadka meediyaha ku jira oo dhibaatada ka shaqaynayo waxaad ogaatiin aakhire iyo adduunba inayna waxba ka helaynin qabiil wuxuu ini taraayo ma laha qabiil ilaahay baa kaa dhaliyay waa iska adreys jas qof kasta soomaaliyana dadku qaraabo leeyahay hooyaday waxay ku dhalatay hadda muxuu ahaye ii sheeg ayl bay ku dhalatay ayay 10 ayay caabud waaqan ka joogaa ama reexaan weeye hooyadayna waa naag maxamuud saleebaana xagee la kala tegahayaa meel kale yaanahay marka qabiilkaana hay ii sheeg anaa naag sacadahaana haye shalay maxaa dadka loo kala celin waaye haddii la rabo muxuu ahaye dadku inuu kala xanibnaado haddana yaan la isguursanin haye saas maa rabtiin soomaaliya waa dad reemiyo waa daaqsato waa lays dhalay meel loo kala socdo malaha ha la joojiyo waxyaalaha la wado jigjiga waa inaan tegi kartid oo wax ka qabsan kartid soomaaliya degan walaal baa layahay intee la kala aadaa ilaahay baa dadkan wada dhalasiiyey meel loo kala socdo male ilaa hadda caruurihii isguursanayaan meel la kala aadayo male qabiilla lagu kala tegi maayo ee waa damiir xumo nagu jirto iyo dhibaato aan u baxnay marka dhibakana allah naga bixiyo awlaadana muxuu ahayd arnahalna noo hagaajiyo dhalinyarada allah noo toosiyo guur xalaaliya allah noo siiyo annaka dhan allah isku kaayo soo celiyo soomaaliya aad u kala fogaatay gabadha in adeertayana baayo horta bal qabso bangiga la tag bangiga ma fahanti 8daas magaalo ayay degaan ogaadeen ee bangiga la tag beenna ma kuu sheegaayo ma fahanti waa kugu celinayaa af madow waa degmo weyn ma fahanti qooqaani dhooble buu'aale badhaadhe buulo xaaji buulo gaduud sanguuni 8daas magaalay degaan kuwo kaloo yaryarna way jiraan horta bal bangiga la tag markii runta qofku loo sheego waa inuu bangiga la tago la aado sidaasaan kuu rajaynaya in adeertay magacaaga wallaahi ma xasuusta laakiin dhowr jeeraan ku fiirsadaa mar kastaba waxa waaye waxaa kicinaysaa waxaa babinaysaa maxaa la dhahaa xiisad qolaa u babinaysina ma garanayo qof walbana wuxuu ilaahay siiyuu helahayaa adduunyada waa waqti iska kooban waa la dhimanayaa la noolaan mahayo yaa fahanti qabiilla ku god kula geli maayee iska tartiibso qabrigaaga iyo qiyaamahaaga iyo ilaahay ka cabsi ilaahayna gabdhaha ha heshiisiiyo gabdhaha soomaaliyeed waa gabdho fiican waa hooyooyin waa beysti waa dad aad u wanaagsan naag xun kuma jirto waa naaga waxa waaye very strong iyo
soomaalida waa gabdhahooda lagama sheekayn karo inkastoo hadda jirkooda alla ku diray oo ragguna inkastoo ay wax qarxinayaan wax laynayaan ayagana jirkoodiiba alla ku diro jirkoodii way la dagaalamayaan foolxumada isku geysteenna waa aragteen raalliga ahaada afka faranfarka bahal faranfar la yiraahdaa jiro gudbulka gala oo afkiisu muruxsan yahay iyo wallaahi been inii sheegi maayo gabdhaha waa ka naxa soomaaliyeed doofaarka marka afkiisana way u ekaadeen aad bay isku fool xumeeyeen fiiriya ilaahay in ku dhaariyeen waxba iima marsana sama jeediin maariin dhalaal galana midabka gabdhaha soomaaliyeed yaaba heli karaba waa madowga jilbiska waa caddaanta oo macaan oo qaraha u eg maxaa la yiraahdaa bocorka u eg haye waa midabkaygaasoo kale la yiraahdo muxuu ahaaye maariin adduunka ilaahay gabdhaha soomaaliya gabdho ka midab qurxoon ma jiro walaalayaalo marsada waxyaalaha natuurka waa ogtihiin soomaaliya waxaa la marsan jiray bool berihi ma garanaysi bahalka cad ku jiray oo ilmaha dabada loo marin jiray yaa hadda ka hor baa anoo geel ilaalinhaya oo geel wadaan arkay gabar bool birahaas wadataa anu reer baadiyaana hadda dhow dagaaladii baa layga keenay haddeeraan ka imid haddeer 90gii aan inta imid markii dagaaladii saas dirito intaan u soo galay saan geel u daba joogay iyo ari iyo lo ma fahanteen xataa libaaxa geel waa ka reeba dhurwaa waa kula dirba maxaad ari baadiya waxaad laga sheegaa waa kaas ma jeedin midabkaygaasaa wataa ma jeedin waxaan ka jeclahay male waxaa la iska marinaa fiiri waxaan ismarinaayo malaha xaaraan xataa maraan madoobaada aniga dhan maan mugdi noqdo jiro igu dhacday wejiga caadi waa iska daaweeyey marka quruxdiina soo ceshada quruxdiina iyo dheehiina waa sida ilaahay inii abuuray maahan inaa muxuu ahayde iska dhigtiin afka faranfarka ama afka doofaarka foolxumo gabdhihii foolxumo markaas ilmo wada cararaayana dhaleen maxaa keenay waa daawadaas la ismarinaya inay afagti garaysay daawada iska daaya waxaa natuurkaa marsada raalliga ahaada anuu dad maadiyaan kusoo weynaaday caruurtayda dhan baadiyaan ku dhalay ilmahayga dhan baadiyaan ku dhalay geel aanu ilaalinayaan dhala reer baadiye anaha alxamdulilaah lo baan dhurwaa ka reebay geel baan libaax ka reebay dawacaan ari ka reebay ma fahantay reemiyi haamaha waa kala goyn jiray saanu talo rarada waa kala saasaan 5 daqiiqo 7 habeenaan ku ebi jiray raar ugu weyn kaas alxamdulilaah haddaan carradii tago ma rabaan odayaasha soomaaliyeed hadda islaan aniga ila ege fahantay waxaan rabi lahaa inaan inta carradii tago raradiya ka sameeyo haamaha ka talo dhiilaha ka talo dhacdhacdhac waa kaas walaalayaal isjeclaada gabdhaha soomaaliyeedowna iska daaya isbarbagaaninina gabdho wada qaaliyaa tihiin gabdho wada mutacalimiina gabdho wada sharaf leh maasha allah tabaarak yaa heli kara gabdhaha soomaaliyeed caddaan baa saf xataa ugu jira waa u muslimaynaa 4,000 oo norway waxay dhan taqaanaa gabdhaha soomaaliyeed aan sugayna waddanka soomaaliya markay nabad ka dhacdo meeqa sanaa sugaysiin yaa og gabdho qaaliyaa tihiin waddanku idinku inuu ku dhisan yahay caruurta waxaas wax wada bartay waxaas wax madax wada noqday gidda idinkaa soo wada koriseen gabdhaha soomaaliyeed la gabdho la heli kara maaha laakiin iska daaya waxa ay ismarinaysiin oo kiimikada haddana waxaa la sheegaya kaniini lagu dhinto oo lagu noqonayo ma lagu yaraanayo ma garanayo bucbucaa lagu noqonaa da ma lala dagaali karo yaa haddii waxaa la geeri ku daysa gabawaan ku daynayn iska dhaafa cunadiina nadiifka iska cuna maanteen is ilaaliya khayr baa inii rajaynahayaa dowladda hala dhiso waddanka hala jeclaado hala isku soo dumo soomaali meeluma kala socoto aayad maaragta ma isku noqnoqono annaka dhan qabiil aad ka maqan tahay ma jirto qabiil hal qabiil ka maqan ma jiro oo la isku dhafan yahay geed waxaa jira la yiraahdo maxaa la dhahaa saasuu geedaha iskugu duubaa saasaan isku nahay dad isku duuban baana meel aan kala tegaynin anti meel loo kala socdo ma jiro hala isjeclaado walaalayaal cafi aliya masaabax waa kaas hadda waa kaas khayr iyo barwaaqa inii rajaynaya